siyaasi maxamuud ducaale Salebaan Tallaabo oo kamid ah siyaasiyiinta gobolka Saaxil oo Honkebel TV waramayay ayaa ka hadlay aragtidiisa ku aadan iscasilaadii gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cabdiraxmaan Ciro waxaanu yiri isagoo arintaasi ka hadlaya waxaan arkaa mid waqti badan ka hor loo baahnaa leeyno Cabdiraxmaan 12 sanadood buu soo ahaa sidaas sheegtay adba golaha wakiilada gudoomiyahooda ahna gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ahna musharaxa xisbigaas oo dadku ay kala garan laayeen Cabdiraxmaan labada arin iyama daacad ka ahayn gudoomiyenimada xisbiga mucaaridka mise gudoomiyenimada hawsha oo hayo oo ah dhardhaar kamid ah dhardhaarada dawladnimada oo madax ka ah marka silsiladisa u shalay iscasili taasi kooban oo dhahmo raay hadii uu iscasilo wax macnaheedu ay sameynaysaa ma jirto wana arin guul ah runtii qaranka iyo carqaladu ka gudbay oo u dhaafay qaran mar wax laga weydiiyay waxa lagu xasuusan doono gudoomiyahaasi waxaana uu yiri Cabdiraxmaan waxa lagu xasuusan doonaa aniga aragtidayda runtii gole fadhiida oo aan shaqo qabanin oo aan yani gabay hawshii loo diray ee dadku u doortay sababtoo ah xisbi waxa la rabay inuu yeesho goluhu xeer hoosaad shaqeeya gudiyo shaqeeya oo qaybsan yahay inuu yeesho isla xisaabtan iyo dabagal inta midna kama jiro golaheena oo waxaynu ognahay xeer hoosaadka kale ugu muhiimsan wax ka bedeliye kaabis baa lagu sameeyay oo waa la furay markii la damcay in loo codeeyo ama wax ka bedelkii hawshiisa la socodsiyo la meel mariyo Cabdiraxmaan arinta wuxuu ku meel mariyay fed iyo dagaal maalintaas sidoo uu joogsadayna dib looguma codeyno looma halkii loogama soo qaadin shirkii xeerkii xeer hoosaadkii wakiilada hanti dhowr baa la rabay inuu yeesho baarlamaanku ma jirto marka waa golo aan runtii magaciyaalaho kaana uu ka dhigay Cabdiraxmaan waa lagu xasuusanaya gudoomiyaha xisbiga kulmiye ahna musharaxa xisbigaasi gudoomiyaha xisbiga wadani ahna musharaxa xisbigaasi iyo gudoomiyaha xisbiga ciidahana musharaxa xisbigaasi saddexda musharax keebad u aragtay inuu ku haboon yahay inuu talada dalka hogaamiyo 5 sano ee soo socota madaxweyne Siinaanye dabadi wadankeenu imika wuxuu marayaa runtii marxalad adag oo u baahan cid ka saarta dhaqaale ahaan amni ahaan iyo siyaasad ahaan mid gudo iyo mid dibadba Soomaalida xitaa marka looda la helaa weelaha la maalaa number 1 waxa waa ma koow ah waxaas in doonayno dhan sugidda amniga iyo kala dambeynta taana cid garanaysa ayuunba ku haboon inay qabato oo garanaysa meeshii loo maraayay kaasna waxaan anigu aaminsanahay labayn maayo waa gudoomiyaha xisbiga kulmiye ayaa ku haboon